annagu saan yeeli lahayn waan naqaanaa sida ayna yeelayaan laakiin annagu maan ogeyn laakiin maantaan ogaanay meelo badan baanu soo marnay waxaanu aragnay dhammaan mas'uuliyiintii RCC Qaatuma waqooyi bari hadday yihiin dhismada kala duwan hadday yihiin siyaasiyiinta hadday yihiin garaadyada hadduu yahay madaxweynaha intaba waa aragnay ay noo sheegeen oo nidaam ahaa ballanqaad ahaa waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay waxba kama jiraan imikana waxaanu ka taagannahay gawaan arrintaasuna waa arrin aan suurtagal ahayn sanad dad aad isugu dhow inaynu nahay dad soo wada dhiig baxay aan ahayn meediya dhaawac waa idin la yeelanay qaaraana waa idin la yeelanay maanta kursiga yagaas inuu yooyootan iyo baryo galo midna maanu eegaynin Wallaahi barakaat sida aqalkii iyo Suldaan Maxamuud ba u sheegeen shirka maanta meesha aan ku qabanayno waa shir jaraa'id oo ku saabsan wixii ka dhacay waqooyi bari Soomaaliya markii horena la dhihi jiray SSC Khaatuma baan halkaan uga warbixinaynaa saddex qodob baan aniga marka warkayga ku soo koobaya qodobka koowaad waa warbixin laba daraf ah darafka koowaad waxa weeyo dadka meeshaan degan oo mareexaan ama sade waa dad taariikh dheer leh ilaa 5 fac 6 fac bay degan yihiin waxyaabaha taariikhda ka mid ah waxa ka mid ah magaca Laasacaano iyaga bixiyay Sheekh Maxamed Cabdulqaadir Sheekh baa baxshay Laasacaano magacaas muddo 300 oo sano ah xilli ku dhow taqriiban bay degan yihiin meeshaas dad markaa caan ah oo Soomaali taqaan oo daarood yaqaan oo dhulbahanta yaqaan way markii dhibaatadu ay jirtay wafdigii ugaasku uu hogaaminayay oo ismada hadda nala joogo qaar ay ku jireen waxa la sameeyay jiif caaqil Maxamed Saleebaan baa la sameeyay waxaana loo sameeyay sool sanaag iyo cayn inuu ismka yahay garaadadii iyo maamulkii markaa jirayna goobjoog bay ka ahaayeen sababta loo sameeyayna waxay ahayd wixii beeshaas laga rabo inuu ismku keeno wixii ay rabaanna asaga lagala xiriiro oo uu keeno arrintaas markaa maamulka la sameynayay iyo ka qayb noqoshada inay ka qayb noqdaan xuquuqdooda helaan horey baa looga hadlay sanad ka hor baa laga hadlay ballan baana laga lahaa mid waa midaas warbixinta labaad waxa weeyo wafdiga hadda anigu aan ka mid ahay oo xamar ka yimid oo Islaam Axmed Cali Gamaadiid iyo Suldaan Maxamuud Cabdi Shakuur oo reer ugaasa ay horkacayeen annaguna aan ka mid ka ahayn waxaan nimid 9kii bishii 7aad baan nimid maantana bishii 8aad Agoos waa 4 weey warbixinna waa waxay aan la kulanay intaas inta u dhaxaysay haddaan annagu nimid guriganagi baan nimid waxaan islayn gurigiinni baad imaadeen marti maahidiin ehelkiinni iyo sokeeyihiinni baad u imaadeen runtii wax badan oo aan ka ilaabaynay oo aan uga ilaabaynay ama aan uga maaragtay aan uga aamusaynay in maamul cusub la samaynayo dad badan meesha inay isugu imaadeen damac badan inuu jiro
caqabada inay jiraan waxyaabihii aan mudnayn oo inaanan helin waxaan uga sabraynay waxyaabahaasaan uga sabraynay waxaa ka mid ah inaan nala soo dhoweyn inaan xurmadii aan mudnayn aanna helin yeelkeede ballankii horey loo lahaa baan annagu ku hawlgallay isimadii baan ka bilownay isimada waxaan u sheegnay deegaankan dadka deggan maamulka la dhisayo xuquuq inay ku leeyihiin horeyna looga hadlay haddana annagu aan u nimid inay xuquuqdoodii helaan xuquuqdaasaynu doonaynaa baan niri waxaan kaloo codsannay isim kastoon la kulanno isimadii inay gogol noo taal casuumaad noo taal isimadii oo dhan aan helno si wixii aan rabno si mug leh oo miisaan leh oo maxaan ku dhahdaa la wada og yahay si aan u gudbinno middii ayada ahayd way suuroobi weyday ma aanan caroonin hawshannadii baan iska wadannay nin kastooo isimaa wuxuu lahaa xaq baad u leedihiin inaad heshaan matalaaddiin qodobkaa matalaaddaan rabaa inaan fasiro dadka qaar inayna aqoon baa laga yaabaa mareexaan wuxuu rabo waa xildhibaannahu wey xildhibaannaa mareexaan rabaa xildhibaannadii ayada ahayd meel walba geed walbana oo fadhiisana golo walbana oo tagnay isimadii hadday yihiin waa la kulannay gaargaar baanu la kulannay waxba hadda magacooda inaan sheegno hebel iyo hebel inaan dhahno micno ma keenayso waxaan la kulannay madaxweynihii sida kumeelgaarka hawsha u soo waday xilliga kumeelgaarkayd haddana dowr weyn ku leh qolo walba waxayna lahayd cirbad suuxisaa inugu dhufanayso wixiina waa leedihiin bay lahayd waxaan la kulannay wasiirka arrimaha gudaha wafdiga uu hogaaminayo oo federaalka 2 jeer baan la kulannay ayaguna sidoo kale lahaayeen intaas waa warbixintii markaynu xamar ka nimid iyo hadda intay u dhaxaysay wixii dhacay wey ma rabno inaan diirka sii qaadno qodobka saddexaad waa shirkan jaraa'id waxa kalifay wey horta dadku waa ehel waxa weeye wax badan baana ka dhexeeya soomaalidu waxay tidhaahdaa walaalkaa waxaadan u quurteen lagama qaato waxaadan adigu ka qaadateenna looma quuraaliy reer waqooyi bari soomaaliya annagoonna kala reebe waxaan u sheegaynaa waxa ka dhacay maamul samayntii wixii ka dhacay iyo awood qaybsigii inay waxaanna qaban inay tahay waxaanna qabanin inay tahay waxaa la yidhi nin geeda tiriyo yaa ka tegey muxuu sheegay baa la yidhi meel maamul lagu dhisay oo soomaali ku qaybsanayso oo soomaalidii kale oo dhan xuquuqdeedii heshay oo daarood wax ku qaybsaday oo daaroodkii kale xuquuqdiisii helay oo harti wax ku qaybsatay oo hilbihii wixii u weynaa ayagu qaateen sadoo joogoo deegaana in la qadiyo hadalkaasu hadal weyn weeyo dhagaxna meel dhow buu dhacaa dhawaaqna meel dheer buu dhacaa nin baa yidhi ilaahu hashayda iyo hasha reer xididka hor dil buu yidhi maxaa yeelay xibinta igu leeyihiin baa xibinta ay siinayaan baan rabaa buu yidhi inaan barto maamul waqooyi bari soomaaliya ay dhisayso iyo qayb ay dhisayso oo reersade ay qayb ku yeeshaan maalintii koowaad weeye waa maalintii koowaad qalin ayagu ay hayaan oo saxiixayaan oo ay wax ku qaybinayaan oo ay shir guddoominayaan oo annaga sadaa aan marti u noqonno oo aan wax ka damacno oo xuquuq aan ku yeelanno maalintii koowaad weeye
annagu saan yeeli lahayn waa naqaanaa sida ayna yeelayaan laakiin annagu maan ogeyn laakiin maantaan ogaanay waxaan sheegaynaa hadalkanaga dal iyo dibad buu gaarayaa fariinta aan dirayno sida bay gaaraysaa sidaan matalaynaa dad meesha iska jooga ma nihin deegaankuna deegaan meesha iska joogay ma aanay ahayn arrinta meesha ka dhacday waan ka xunnahay waxna qabtana maaha walaalaha iyo hadday arrintaa beddelaan oo ay garwaaqsadaan waa caymo wey sida hadda ay tahay hadday u daayaanna waa taariikh qormi doonto weeye oo boqolaal sano socon doonto waxaan marka leenahay gabagabadii ninka la yidhaha cali xoosh wasiirka arrimaha gudaha ku sii fogaan mayo laakiin nin baa wuxuu yidhi meel sidan oo kale wax uga yara hallaabee yaa nin wuxuu yidhi war maxaad u yeeshaale markaasuu wuxuu yidhi ree hebelna inkaar uga baqi mayn iyo eed hebelna reer hebelna waxa weeyo lugooye uga baqi mayn warka cali xoosh intaasaan ku soo koobayaa xamar baan isla joognay odayaal daarood baan nahay waxa uu galo waa naqaanaa reer RCCO khaatumo ay buddigaha u tahayow wixii meeshaan ka dhacay wax sida qabta ma aha waxaan ku faraxsannahay ma aha eedeeda iyo mas-uuliyaddeeda iyo wixii hallaabayna idinkaa laydin raacan doonaa waxayna noqon doontaa labadii reer oo la isku xamanayay oo dadka isugu jeclaa oo wax badan oo daaroodka ay gooni ay uga hayeen jiray waxa maanta meesha ka dhacay wax taariikhda iyo buugaagga lagu qoray noqon doonaa arrintaa ka jawaaba waxa aan mudannahay aan inka helno haddii kale sidaad u caddayseen ha ahaato taariikhdana ha gasho aad iyo aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu